afayeenka xisbiga talada Somaliland haye kulmiye mudane Xasan Maxamed Cali Gaafadhi oo maanta shir jaraad ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in xisbigoodu ay 300 oo boyadood oo biyo ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka lagu samata bixinayo abaaraha ku dhuftay deegaanada bariga Somaliland oo laga dayrinayo xaaladda nololeed ee dad iyo dunyo. xisbiga kulmiye iyo xukuumaddu ay isku mid yihiin oo gacanta xukuumaddu ay tahay gacantii xisbiga gacanta xisbiguna ay tahay gacanta xukuumadda haddana waxaanu isnii calaamad bal xisbiga ka geysta haddii la yiraahdo abaaraha dhacay waxaanu dirnay 300 oo booyadood oo biyo ayaanu u dirnay bariga wadanka Somaliland Jamhuuriyadda Somaliland ee abaartu ay waxyeeleysay waxaanuna ugu talagalay dhulkii loo qaxay ee dadku ay u qaxeen ama ay u hayaameen ee xoogayga roobka ay uga daay iyo dadkii kici kari waayay halkoodii maxaan ku dhahdaay ay abaartu ku heshay ka kici kari waayay. Mr. Gaafadhi ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inaan marnaba loo baahnayn in gacmo badan ay maamulaan kharashaadka loogu gurmanayo abaaraha mahlakay dadka ku dhaqan deegaanada bariga Somaliland. waxa mar walba loo baahan yahay in wixii la tarayo dadkaas ay wax habaysan oo hagaagsan ay ahaadaan gacmo fara badan haday maxaan ku raahdaay inaba meel ay wax ka bixiso waxa noqonaysaa in hanti badan oo loo baahnaa oo si fiican looga bogan lahaa ama si fiican wadada lahayd u mari lahayd inay siyaabo khaldan ay u baxdo. afayeenka xisbiga talada Somaliland haye kulmiye oo sidoo kale hadalkiisa si wata ayaa waxa uu xukuumadda Somaliland ugu baaqay inay la timaado qorshe cad oo lagu badbaadinayo dadyagu ay abaaruhu saameeyeen xukuumaddu ay keento wixii cid wax gaarsiin karta ay gaarsiiso waxa aan bulshada reer Somaliland ee ganacsatada aan leeyahay maanta sakadiini iyo waxtarkiiniba waa loo baahan yahay maalin ay sakadaas ka wanaagsan tahay meel ay ku baxdo waa dadka ay abaaruhu haystaan. maalmihii ugu dambeeyay waxay sii taraya baaqyada kala duwan ee loo jeedinayo sidii ganacsatada Somaliland iyo shacabku ay si weyn uga qayb qaadan lahaayeen sidii gurmad loogu fidin lahaa walaalahooda ku dhaqan deegaanada bariga ee abaaruhu ku dhufteen oo laga dayrinayo xaaladooda nololeed. Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic Star TV Hargeysa.